توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع أسجودا iyadoo tiibe ay hayso qufacayo aduu yiraahdo war duray baa ku haya oo kala baqo ama kala xishoodo xanuunkan inuu u sheego ma daweyn karo walihi saasuu ku dhimanaya qofku wax kala garanaya ilaahay diintiisa garanaya subxaanahu wa ta'ala waxa isna looga baahan yahay intuu garanayo inuu sheego iyadoo dabcan dii aadaabteedii iyo xikmadeedii iyo asluubkeedii la marayo laakiin inaanu sheekhu noqonin marba dadku say rabaan inuu markaa wax u sheego waxa laga yaabaa in magaalo timaado oo la yiraahdo sheekhu magaalada tan mowduuc hebel iyo mowduuc hebel lagama hadlo maxaa yeelay haddaad ka hadasho dadka kala firdhaya markaad tiraahdo ruuxu laga hadlayo min diintii hayn waa diintii lafteedii weeye laakiin diintii baan dadka qaar u baahnayn saa darteed marka haddaanay u baahnayn inta ay rabaan u sheeg inta iyagu ay doonayaan ee ay ku faraxsan yihiin ee ay maaragtay waka inta kala hadal inta aanay rabin miyaa ma inaga dhaafin kule sheekh inta inaga dan horta afeefta waan hormarsanaya insha Allah qofkii hadalladan sheegi doona qaarkood ay cajabin waayaan iyo la yaabin waayo ninda si afeeftay waxaan u maleynayaa inuu cudurdaarkiisa si hormarsado insha Allah waxaan nasaa ilaahay walaalayaal mawduucu caqiidadana waa muhiim caqiidadu waxaan oran karaa waa soodii diinta qofka Soomaaliga garanaya xayawaanku ama xoolaha inuu qalanno waa taleerada waa soo iyo saantu waa maqaarkan sare sooduna waxa ku dhex jira hilibka iyo lafaha inta caqiidadaadu la eg tahay ayaa amalkaaga u leekaanaya waa inta hilibkaaga iyo lafahaagu la egyihiin bahargaagu la ekaanaya ma suurtagal tahay yaani waxa weeye sagaaro hilibkeeda iyo lafaheedu iska yar yihiin in inta la qalo harageeda wadaan laga sameeyo waxaan umaleeyaa ragga xoolaha maaragtay dhiqi jiray inay yihiin suurtagal maaha inta marka caqiidadaadu la egtahay waa diintaadu la egtahay waa inta amalkaaguna la egyahay waxaynu maanta ka hadlaynaa marka waxa weeye waa caqiidada insha Allah waxaan ugu rumaysanahay ummadda muslimiinta maanta dad badan baa xal u raadinayo isla war xalku xageebu ku jira dhibaatadan si looga bixi karaa mushkilada u weyn ee ummadda muslimiinta haysata waa khalal ka galay xagga caqiidada waana bayaamin doona hadii Allah ka dhigo insha Allah ta'ala inta kadib walaalayaal waxa isweydiin kartaa caqiido waa maxay caqiidadu waa waxa aad rumaysan tahay kalimadan waa kalimad carabiya aqada yaqidu waa guntay waxa la xiro waxa qofku maaragtay qalbigiisa ku guntado ee kalifa inuu u dagaalamo kalifa inuu wax u bixiyo kalifa qofkii la wadaaga inuu soo dhaweysto ka hor yimaada inuu iska fogeeyo waxa aynkaas caqiida waxaad rumaysan tahay waa waxaas adigu ama magaca doonta waa u bixi hadii baashi qabyaalada la oran jiray walaal dib ka tilmaami doono insha Allah ay tahay taadu carooto ee aad u dagaalanto ee aad wax u soo dhaweysato ee aad wax u nacdo ee iyaduba ku hagta ee aad u carooto aad u faraxdo oo wax u jeclaato wax u karaahaysato haday qabyaaladu halka ku jirto caqiidadu marka waa qabyaaladu halka hadii ilaahay ku jira subxaanahu wa ta'ala oo maaragtay wixii rabbi cala galiyaa ku cala galiyaan wixii ilaahay subxaanahu azza wa jalla raali galiyaa ku raali galiyaan dadka ahlullaahiga aad ka agdhowdahay waxaad markaa rumaysantahay alla weeye subxaanahu wa ta'ala caqiidadu marka walaalayaal ma falsafadaynayo waa qofku waxa uu rumaysan yahay intaas hadaan isla fahanno waxaan wax ka oran doonaa horta caqiidada iyo ahamiyadeeda anigu tusaalayaal xoogay intaan ku dheeraado ka soo qaadi doona jiilashii inaga horeeyay ee caqiidada saxiixa fahmay waxaan ku xijin doonaa jahliga aynu kaga sugannahay caqiidada waxaan ku xijin doonaa si aan markaa u tusaaleeyo jahliga si aan loo yaabin tusaalayaal hadii Allah ka dhigo insha Allah kadibna Soomaalida iyo bal waxay rumaysan tahay baan ku soo khatimi doonaa biidnillah walaalayaal caqiidadu inay muhiim tahay waxa kuugu filan de waa wixii Ilaahay subhanahu azza wa jalla anbiyada la soo diray inay dadku Ilaahay kaliya rumeeyaan oo Ilaahay isu dhiibaan waa wixii anbiyada la soo diray waxaad ogtihiin quraankeena kariimka ahi yaani waxa weeye 114 suuradood culimadu waxay yiraahdaan dhowr iyo 80 suuradood baa maki ah dhowr iyo 80 suuradood baa maki ah macnaheedu waa maxay
wixii maka kusoo degay caqiidun bay ka hadlayeen dhowr iyo 80 suuradood baa un caqiido ka hadlaya inta soo hadhay oo labaataneeyo oo agagaarkaas ah waxay ka hadlayaan waxay isugu jiraan axkaam iyo caqiida axkaamtiina waa ka qayb caqiidadiina waa ka qayb weyn saa darteed qur-aankeena kariimka waxaan ba oran karnaa 80% ilaa 90% wuxuu ka hadlaa waaba un caqiido ahamiyadeeda horta taasaad ku garanaysaa waxa kaloo ahamiyadeeda ku tusinaya nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam dacwada 23 sano nabigu waday sallallahu alayhi wasallam 23 ka sano 13 kamida nabigu makuu joogay calayhi salaatu wasalaam maka muxuu ka qabanayay nabigu wuxuu ka hadlayay kaliya caqiidada iyo tawxiidka dadka nabigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha an-nas qulu la ilaha illa allah tuflihu wardadiyahu la ilaha illa allah dhaha walibaanisaani intaas nabigu sharxayay 13 sano markii nabigu Madiina tagay calayhi salaatu wasalaam 10 sano umrigiisa ka harsanaana caqiidana waa sharxayay acmaashan iyo cibaadaadkan iyo fiqhiyaadkan iyo muaamalaadkan nabigu waa sharxayay calayhi salaatu wasalaam quraanka intiisii badnayd iyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa intiisa badanba waxay ka hadlaysaa waa un caqiido bal ilaahi subhanahu wa azza wa jalla kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay wama arsalna min rasuulin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun rasuul ma dirno illa waxaanu la dirnaa oo kaliya dadku inay ilaahay caabudaan tawxiidka in loo saxo caqiidada in laga hagaajiyo in ma aragtay tawxiidkooda khaalis saafiya noqdo intaas ilaahi subhanahu wa azza wa jalla anbiyadoo dhan oo ilaahay la soo diray subhanahu wa ta'ala caqiidadaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam 13 sano oo saxaabada barayay caqiidada dhowr iyo 80 suuradood oo quraanka kamid ah kaliya ay ka hadlayaan iyadoo suurka kalena xataa caqiidaduna ay ku jirto laakiin intan waa u khaalis oo u baraxtiranta caqiidada caynkaasa jiil bay soo saartay dad bay soo saartay markay fahmeen oo cabeen oo caqiidadaasi ay biya dhigtay ummad bay soo saartay ummadda ay soo saartay yaan rabaa inaan tusaalayaal yar ka bixiyo haddii alla ka dhigo insha Allah si aynu markaa u fahanno meelaha la inaga haysto inay kamid tahay yaani waxa way khalalka caqiido inagu jira sidii dadkaasi wax u rumeeyeen inaynan u rumaynin walow aan dib ka tusaalayn doono waxyaalaha inaga khaldan waxa kamid ah insha Allah waxaad garanaysaa Abu Bakr radiyallahu anhu maanta waxa la ururinayay sadaqaad Soomaalidu waxay tiraahdaa yaani beenaale markhaatigiisu fogeeyaan waxay kaloo yiraahdaan meed maxal sidee ka u dambeeyay maanta u dambeysay hadda darsigii kan ka horeeyay sadaqa la ururinay sadaqada 5,000 hala bixiyo oo 2,000 hala baxsado 1,000 hala baxsado intaasa wadaadada in hortaagna ay ku xiiqeen kadibna xoogay baa la inaga helay bal saxaabada nabiga hadda u fiirso Abu Bakr radiyallahu anhu jamii'a maalihi buu bixiyay maalkiisa oo dhan maalkiisa intuu tira leeyahay yuu bixiyay waliba hal mar wax ka badan